munaasabadani baroordiiqda ahayd oo iskugu yimaadeen wariyaasha qurba joogta ay ku dhaqan magaalada London iyo qaar ka mid ah kuwa ka yimid gobolada wadanka Britain ayaa waxay ka dhacday waqooyiga magaalada London. qaar ka mid ah wariyaashii ka soo qayb galay munaasabada baroordiiqda ayaa hadallo ducooyina waxay ka soo jeediyeen madasha, waxayna sheegeen inay aad uga xun yihiin qarixii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne lana eegtay wariyaashii ku shaahayay magaalada Muqdisho iyo waliba wariyii kale Xasan Yuusuf Absuge ee lagu dilay magaalada Muqdisho. waxaana halkaas laga soo jeediyay ducaya dardaaran iyo waliba taariikh ku aadan Allah u naxariistay wariye Cabdisataar Daahir Sabriye, Liibaan Cali Nuur iyo Cabdiraxmaan Yaasiin. waxayna sheegeen inay aad uga xun yihiin dhibaatada joogtada ee loo geysto wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala saxaafadda xorta ah gudaha dalka Soomaaliya. in guud ahaan aan muujino waxyaabaha aan ka midaysanahay marka laga hadlayo xirfadleyda dhinaca warbaahinta, inkastoo dabcan waxaan isugu nimid ay ka duwan tahay oo ay tahay murugo iyo naxdin fara badan oo la xiriirta dhibaatooyinka joogtada ah ee warbaahinta inta badan loo geysanayo inaan guud ahaanteena muujino halka dareen ee aan ka qaadanay. munaasabadda suukan keentay waa garan karayaa, waxaana igu biiraysaa dareen ah dad isu leex jeclooda inaynu nahay wariyaashii ku dhintay weeraradii kala dambeeyay ee magaalada Muqdisho ka dhacay. ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo, eheladoodina sameeyay man ka siiyo. sidii horeba loo tilmaamayna waa fursadoon waxa aynu nimanka geeriyooday dhaanno. qaar fara badan oo caawa halkan jooga ayaa raggii maaragtay xamar ka soo shaqaynayay qudhoodu halisaha iyo wax la midka uga yimid. waa nasiib darro iyo dhibaato weyn oo haysata saxafiyiinta Soomaaliyeed meel ay joogaan gaar ahaan Soomaaliya. inta badan waxaan ognahay xarig iyo dil aad u fara badan inuu jiro, gaar ahaanna dilalkii ugu dambeeyay. tan ugu daran waxa weeyaan sida horeba loo sheegay waxa loo beegsanayo saxafiyiinta wax kala maaha, waxa weeyaan waa wax qabadka iyo ummadda waxay u qabanayaan iyo isbeddelka ay doonayaan inta badan ugu yaraan in ummaddu ay noqoto mid maaragtay dadkeeda dunida dhinaceeda ka raacda oo wax qabsata. waa taasi xanuun badan, qiimo weynna way noogu fadhidaa dhimashadoodii walaalihii ugu dambeeyay afarta ahaa. dhammaan waxa loo socdaa waxa weeye waa dadka Soomaaliyeed dhibaateeyo. dadkaasi dadka leynayana waxay ku dhex jiraan ummadeena Soomaaliyeed, shacabka gudihiisa ku dhex jiraan. waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay helaan fursadii ay dadka dhibaatada sameynaya ay ugu tilmaami lahaayeen dadka nabadgelyada raadinaya si markaas loo helo dadka dhibaatada geysanaya. dadka inta badan saxafiyiinta oo jooga magaalada Muqdisho aqoon baan u leeyahay, runtiina wax badanna waan ka soo shaqeeyay. marka runtii aad baan uga xumahay, tacsi ayaan u dirayaa dadkii ugu dambeeyay ee wariyaasha ahaa ee lagu dilay magaalada Muqdisho ee ka dhintay inaanu isku taxallujino maadaama wadan nabada aan joogno xoogaana aan ka jeebroonnahay. waxaan jeclaan lahaa inaan qoysaskooda bal inaan wax u aruurino. waxaan jeclaan lahaa oo xusi lahaa intii la oran lahaa saxafiyiinta qoryo ha qaateen waa arrin aad u foolxun. horta bal saxafiyiinta ka madaxa banaan dawladdu inay laftigu horta dhexaad ka noqdaan waxa Soomaaliya ka dhacay oo kale. dabcan waxa la qabaa murugada iyo tiiraanyada asxaabtii ugu horeysay, waana ka tacsiyadeynayaa wariyaashii qaraxa ismiidaaminta lala beegsaday 20kii September bishan aynu ku jirno. waxay ahaayeen saxafiyiin aad qaali uga ah ummadda Soomaaliyeed. Cabdisataar Daahir Sabriye waxaan ka soo wada barakacnay gudaha wadanka Soomaaliya, waxaan ku barakacnay magaalada Nairobi. waxa uu ahaa shakhsi aan aad u garanayay isla markaana jeclaa dadka Soomaaliyeed iyo horumarka. waxa uu ahaa qof markasta nabadda u ololay jiray. waxaan ku xasuustaa inuu ahaa qof marka ay dhibaato soo gudboonaato ahaa saxafiga ugu horeeya ee u istaaga. inaa kulankeenan saxafiyiintu ay isugu yimaadeen wuxuu ku aadan yahay dhiirigelinta iyo wax u sheegista iyo isku xirnaanshaha saxafiyiinta Soomaaliyeed caalamka meel kasta ay joogaan. baroordiiq muddo dheer ayaan ku soo jirnay. geeridu ma aha mid nagu cusub, waa mid waqti dheer soo qaadatay. wariyaasha intoodii badnaa mid dhaawac ah, mid ka fakaday xabadii, mid ay la tagtoo dhintay ayay u badan yihiin. dadka ay u beegsanayeen wariyaashaasi iyagoo diidan hadaladooda wanaagsan ee xaqa ay ku hadlayaan. waa markii ugu horeysay aan arko ama aan isu yimaadaan intaanoo wariye meel qura iyagoo hal mar baaq diraya ama tacsi diraya.
magaalada muqdisho iyo soomaaliya meelaheeda kale oo noqotay meel lagu ugaarsado suxufiyiinta ilaa haddana dad maaragtay wax ka qabtay ama amnigooda sugay aysan jirinin waxaan kaloo mahadcelinayaa wariyaasha caawa halkan isugu yimid oo la'aantoodna ay maaragtay barnaamijkan suurtagal lahayn maadaama saxafiyiinta soomaaliyeed oo ku shaqeeya xaalad adag mar walibana lala beegsado qarax iyo dhib iyo dhibaato caawa haddii aan nahay wariyaasha iyo suxufiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa London joogo iyo kuwa adduunka ku baahsan oo niyadda nagala socdaba waxaan halkan isugu nimid in aan u tacsiyadeyno walaalaheenii geeriyooday dhammaan saxafiyiintii ka soo qayb galay kulankan baroordiiqda ayaa waxay alla uga baryeen saxafiyiintii ku geeriyootay magaalada muqdisho inuu naxariistii ka waraabiyo maxamed cabdi cali Royal TV London